الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل أو في عبادة الله الحمد لله إلهي بانكم مهدنينا نوافجيي إن نصوب بوقنو إلهي درتي نيسو زيارنا nabigeeni udgoona calayhi salaatu wasalaam qiso cajiib uu inooga sheekeeyey oo cibro qaadasho leh أصدق الحديث وكلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم war la rumaysto oo la dhagaysto oo la barto waxa ugu khayr badan warka Ilaahay waa Qur'aanka hanuun la raaco dhaqan la raaco ku dayasho wanaagsan oo lagu daydo waxa mutaystay nabigeena Muhammad alayhi salatu wasalaam oo aan raacna hadigiisa ummadihii naga horeeyay buu nabigu ka sheekeeyay qiso ka dhacday waxa hortiin jiray buu nabigu boqor oo wadan dhan buu xukumi jiray waxa uu ahaa ninkaasi saaxir buu lahaa saaxir boqorkaasi dadka wuxuu ugu yeedhi jiray inay isaga u aaminaan ay u gartaan inuu yahay rabbigoodii waxaa dhacday marka duqii saaxirka ahaa ee cilmi sixirka u qaabilsanaa ayaa ka gaboobo da'diisii baa weynaatay marka boqorkiiba saaxirkiiba yaa yidhi boqorow cilmigan cid aan baro u yeedh buu ka yidhi cilmi sixir inan yar buu markaa boqorku u doortay inuu cilmiga uu ka soo barto odayga saaxirka yarkii yaraa dariiqa uu sii marayay marka uu ninka cilmiga uu ka baranayo wuxuu kala kulmay nin isaguna mu'min ah oo ilaahay aaminsan oo aakhirada aaminsan oo ilaahay cilaaqo la leh marka uu ku yiri yaroowe maalin walba waadigan meeshan mare waad igu soo martaa waad sii martaa xageed u socotaa markaasuu yiri cilmiga ayaan saaxirka ka soo bartaa buudi boqorkaana ii soo diray wuxuu aniguna cilmi haddaan kugu daro ka waran cilmiga cilmi kale waa hagaag laakiin waqti daanu ma hayo buuri waqtiga waxaan ugu talagalay inaan saaxirka cilmiga ka soo barto wuxuu saaxirka intaad haddaad ku weydiiyo ka iraada xageed ku dib dhacdo oo ku habsaantay waxaad tiraahdaa hooyaday baan u adeegayay hooyadaa hadday ku weydiisay ku tiraahdo xageed ku maqnaad ku dib dhacdo oo aad ku habsaantayna waxaad ku tiraahdaa saaxirka ayaa i xabisay oo isaga agtiisa ayaan joogay marka labada cilmi waa ka yaraa la baray cilmi al-iimaan ilaahay macrifadiisa ilaahay inuu koonka ka taliyo ilaahay inuu isagu wax abuuro waxna uu dilo waxna uu nooleeyo noloshana ilaahay inuu dadka ku deeqo cilmigaasuu baray saaxirkuna wuxuu baray cilmi sixir cilmi sixirka marka saaxirku uu barayo dadka wuxuu ku xidhayaa saaxirku boqorkaas rabbi niya isaga caabuda qofkii boqorka caabudi waayo cibaadadiisa ka weecdana xanuun baa lagu ridayaa oo sixir iyo waxa loo adeegsanayaa balaayo iyo jin dadkoo dhan way cabsoonayaan oo boqorka bay ku wada xidhan yihiin oo loo aaminsan yahay inuu yahay isagu rabbi
dariiqii yarka yar uu mari jiray maalin maalmaha ka mid ayuu arkay dad fara badan dad aada u fara badan oo waddadii dhooban markaasuu dadkii ku yidhi maxayna dhigay waddadan waxay idhaahdeen daabad dadka cunaysaa dariiqii fadhiisatay deedna meelaan ka marna ma haysan yarkii yaraa wuxuu yidhi labada cilmi cilma sixirka uu saaxirku ibarayay iyo cilma aliimaanka uu ninka raahibka suufigu uu ibarayay ka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu jecel yahay ilaahay uu aqbalo ee ilaahay agtiisa laga yaqaano maantaan jarrabayaa buu yidhi dhagax intuu qaaday buu daabad markaa waa daabad dadka cunaysa ama waa libaax ama waa cankaas wuxuu yidhi magaca ilaahay baan ku ganay buu yidhi dhagaxaasi daabaday magaca ilaahay ku dhimo dhagaxii yaraa markuu ku dhiftay libaaxii uu dhintay ilaa dhagaxan waxaa lagu tuuray ilaahay magaciisa bismi illaahi baa lagu ganay dadkii oo dhan dariiqii bay mareen ka yaraa uu soo socday ninkii raahibka suufiga ee muuminka ahaa buu u yimiday markaa buu ku yidhi cilmigaad adigu ibaraysay ba xaq ah cilmigii saaxirku baatil buu noqday waxba kama jiraan markaa ninkii baa yidhi haddaba aniga maanta adaa iga fadli badan waayo karaama ayaad aragtay karaamad aaya ilaahay ku tusay aayad oo gargaarka ilaahay baad ishaada ku aragtee laakiin waa lagu imtixaami doonaaye anigana ha isoo sheegin adiguna adkaysa buu ku yidhi saaxirkii weynaabaa dhintay halkii saaxirku uu fadhin jiray buu yarkii yaraa uu fadhiistay laakiin dadka sixirka u adeegsan maaye kursigu waa kursigii saaxirka weeyaan uu fadhiisan jiray laakiin shaksiga fadhiistay waa shaksi muumin oo ilaahay aaminsan mu'min billaah dadna markaasuu jaliisulmalik nin oday ahaayoo raggii boqorka ag fadhiisan jiray nin ka mid a ayaa indhabeelo araggiibaa ka tegey deedna markaa boqorkiibaa ku yidhi yarkii yaraa saaxirkiiba ku soo daweynaye orodoo maaragtaane boqorka ikaa soo diray ku dheh qaraabadiisiibaa ninka intay gacanta qabteen bay yarkii u geeyeen markii loo soo geliyey buu yidhi boqorka ikaa soo diree araggiibaa iga tegey aragga ii soo celi markaa yarkiibaa ku yidhi anuu aragga ma qaado mana soo celiyo buu ka yidhi aragga anuu ma qaado mana soo celiyo oo aragga ayaa qaado ayaana soo celin karaa kaasi waa allah buu yidhi allah markaasuu yaabay ninkii rabbiga unba aragga bini aadanka siiya soona celin karaa markaasuu yidhi dee rabbigu waaba ka ikaa soo dire oo boqorkan ay u haystaan iyaku markaa inuu yahay rabbi deedna markaasuu ku yidhi shardi buu ku xidhay marka anuu ilaahay baan kuu baryi inuu ilaahay aragga kuu soo celiyo laakiin adiga waxaan kaa rabaa keliya inaad ilaahay adaamintid adiguna qof bini aadan oo araggii ka maqan yaho iimaan lagu xidhay ka warrama islaamnimo lagu xidhay ma yeeli mise udiidi ya u yeeli u yeelay shahaadateyn shahaadadii buu ku qoray hortiisa shahaadat alxaq yarkii yaraa ilaahay buu u baryey deedna ilaahay araggiibuu u soo celiyey ninkii oo lugihiisa ku socdaa boqorkii u yimiday boqorkiibaa ku yidhi man radda calayka basaraka ayaa araggii kuu soo celiyey markaasuu yihi rabbi rabbigayba aragga ii soo ceshay markaasuu yihi awalaka rabbun hayrii rabbi anigaan ahayn adigu maad samaysatood leedahay markaasuu yihi haa rabbii wa rabbuka allah rabbigay iyo rabbigaagu waa kuma waa keede allah ma odhan karaysin allah allah u yaabay waa la qabtay diintaad la timid dee ka noqo kama noqonaya buu yihi waa la dilay yarkii baa la soo qabtay boqorkii baa ciidan u diro waa la soo qabto waxaa lagu yihi cilmigan ayaa ku bara sheeg cilmiga saaxirka ma ahe ile saaxirku dadka ninkan uu ku xidhi jiray boqorka yarkanna dadka wuxuu ku xidhayaa ayuu ku xidhayaa ilaahay buu ku xidhayaa dadna markaasuu ninkii suufiga ahaayee muuminka ahaayee cilmigan baray buu markaa yarkii yar ayuu tusu yihi ninkaasaa cilmigay baray aniga ninkii raahibkii baa la soo qaaday dhulka intoo la qoday baa la yidhi yaa intaa loogu dhex riday markaasaa labada gacmoodna lagu kala xidhay laba geed markaasaa halkaa madaxa bartamihiisana minshaar ayaa loo saaray
markaasaa lagu yidhi diintan aad la timid ka noqo markaasuu yidhi kama noqonaya buu yidhi waa ninkii suufiga ahaa ee muuminka ahaa dadkaasi islaamnimada agtooda qiimo ku lahayd innaka Soomaali haddaan nahay markay Soomaalidu cadhooto diin cayga ku cadho baxdaba salaama hadiinta wacay waa laga cadhaysiiyay buu koran haad ilaahay aflagaadayn oo kana naga cadhaysiiyay diintu agteena maanta qiimahay leedahay gaalada waxay ugu dhiiradeen in nabi maxamed maanta aflagaadeeyaan waxay ogaadeen meesha nabi maxamed uu naga taagan yahay bay ogaadeen maanta innaka dhaqankii islaamka dhaqankii nabigeena sunnadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam meesha naga taagan tahay iyaga maanta halkaas loo dhigay minshaar diinta ka noqo islaamka kama noqonay buu waa la dilay yarkii yara boqorku wuxuu yiri hadilina kan waa ilmo yar cilmigii saaxir ku haya waa ka cabsiinayna ciidan baa loo dhiibay boorta baarkayga fuushiya boorta dusheeda saara halka dul joojiyo marka ka cabsiya hadduu diinta ka noqdo noo soo celiya hadduu diinta islaamka ka noqoni waayeen halka ka tuuro buu yiri waa ilmo yar gulaam nabiga 10 jir 13 jir 14 jir boortii markay bartamaha la marayaan wala fuulaya boortu waa boor dheer ayuu cirka gacmaha u taaga saasuu eega samada allahumma ilaahu cadawga la igu soo daray sidaad adigu doonto ilaahu cadawga aniga iga kaafi buu yiri fartajat aljabal bu nabigu alayhi salatu wasalaam boortii ba gilgilatay sida uu gilgilatay ciidankii lagu soo daro dhan way wada daateen way wada dhinteen ilaahay yarkii yaraana isaga uu joojiyo halkiisii buu ku hayay markay ciidankii loo soo dhibay ay wada dhinteen ee buurtii ka soo shalwadeen ayaa yarkii yaraa isagoo cagihiisa ku lugaynaya ayuu qasriga boqorka soo galay dadna boqorkii baa ku yiri aaw ciidankan ku dhibay kugu daray markaasuu yiri kafaanihimullah ilaahay baa sharkooga iga kaafiyay buu kuwaas halmayar ducadiisa ilaahay aqbalo buurtii dhaneed gilgilatay innaka ducadeena ka warrama maanta keeneba maanta hadduu u bareero ilaahay intuu baryo yaqiinsan ducadeen laga aqbalayo gulaam inan yar boqorkii baa yaabay ciidan kale haddana u dhiibay qabta dooni saara badweynta geeya badda markuu badweynta gudaha uu joogo laga yaabaa inuu cabsado diinta ka noqde ka noqo dhahado hadduu diinta ka noqdo ii soo celiya hadduu diinta ka noqoni waa in halka ku tuuro buu yiri bartamaha markay marayaan buu yiri ilaahu cadawga la ii soo dhiibay sidaad adigu aad doonto cadawga ilaahu iga qabo buu ka yiri badii baa kacday dhamaantood badii bay wada galeen way wada dhinteen isaga keligii baa ilaahay ku reebay doontii dhexdeeda xeebtii buu yimiday isagoo lugaynayo qasriga boqorka soo galay boqorkii baa yiri aaw ciidankan ku dhiibnay kugu daray markaa buu ilaahay baa iga kaafiyay buu yiri yaa ka kaafiyay allah tabaaraka wa taala sida inaka dhalinyarada ilaahay may ugu xidhan yihiin maanta dad ilaahay ku xidhan inaad noqotiin baa inaga doonaya ilaahay muuminku qofka muslimka waa inuu ilaahay xarigiisa haystaa kaama fogo hadaad barida baryadaada u aqbali hadaad baahidaada u sheegata baahidaada uu ku dabooli kulliga nimka dhalinyar baatir nolosha hadda inii bilaamaysa ninka marka waxyaabo badan baad ka fikiraysaan waxaad ka fikirayso dhan ka ku haya waa kee allah xiriirka maanta inaku ilaahay aan la leenahay intuu leeyahay xiriirkaasi iyo xiriirka mobilka aan la leenahay mid ka badan inta quraanka akhriyayna badan man sintan mobilka eegano danaheenii baan xataa garan laanahay yarka yar ilaahay buu ku xidhnaa mana cabsoonay dhimasho ka baqi maayo boqorkii baa yiri sideen ku khaarijinaan ku dilnaa bal noo sheeg wuxuu saadii dilaysa anaa ku sheegi buu dadka magaalada joogo dhan iskugu wada yeedh aday ku maqleen in maqli maayaan halka soo jooji anigana geedka igu hoos xid leebkayga qaansadayda iga soo saar deedna igu qiyaas markaad igu ganaysid waxaad tiraahdaa kaliya bismillaahi rabbil ghulaam dhabu kay sida aan ku sheegay haddaad samaysid un baad aniga idili wayla ima dili karaysid buu ka yiri boqorka maxaa ugu daran inuu yarka ka dhinto doonaya waayo
dadka oo dhan baa boqorka ku xidhan yarkana wuxuu rabaa dadka inuu ilaahay ku xidho dadka wadanka ku nool oo dhan baa boqorka ku xidhan oo rabbi bay ka aaminsan yihiin inuu rabbi yahay bay u haystaan iyaku waana laga dhaadhiciyey qofkii isaga boqorka amarkiisa diidana saaxirku ku sallidi jiray saaxirka markaa qofka balaayo iyo xanuun ku soo kicin jiray oo saaxirkuna jinka iyo balaayadu la shaqayn jiray yarkan yarna waxa uu doonayaa maadaama dadkani dadkiisii ay yihiin dalkani dalkiisii uu yahay wuxuu rabaa dadkaasi inuu ka gooyo makhluuqa ay ku xidhan yihiin wuxuu rabaa dadka inuu ku xidho ilaahay inuu ku xidho rabbi samaawaati wal-ard sidii buu yeelay boqorku ilaa inuu ka dhintuu rabaaye dadkoo dhan baa la isugu yeedhay hal qof magaaladii laguma reebin yarkii yaraana meel baa lagu xidhay laabiya qaansadiisii baa laga soo saaray markii lagu ganayeyna ereygii uu dalbaday baa loo yidhi ee ahaa bismi illaahi rabbi alghulaam waxaan ku gannay leebka ilaahay magaciisii magacee ghulaamkaa yar weliba rabbigiisa magaciisii halkaasuu ka galay halkaa buu ka baxay uu dhintay nafta waxaan ka jecelaho kale muu jiraa isagu naftiisiibuu diin u waayey inuu ummaddiisa gaalnimada uu ka badbaadiyo naftiisiibuu u horay isagu innakana maanta salaadeenii baa galabgalab ah taan iminka intiina idhahdo intii salaadda subax soo tukato gacmaha taaga waxaanu malin tiradu inay badnaanayn laakiin toddobada iyo barhka halkaa haddii la idhaha albaabka waa la xidhi waad joogtaa waayo adduunyadaad ka fikiraysaa aakhirada kuguma weyna maanta adiga yarkan yar aakhiradaa ku weyneyd diinta agtiisa qiimo ku lahayd dadka inuu ilaahay ku xidho ayuu doonayey waayo hadday bini aadamku aqoonta adduunka taalloo dhan ay bartaan oo ilaahay aynan baran may khasaareen mise way liibaaneen bal iga jawaaba haddaan ilaahay barana ka warrama wax kale aanan haysana waan liibaanay taabaa ka dhaadhacsanayd isaga naftu ha iska baxdo laakiin ummaddaasi ha ka badbaada gaalnimaday ku jirto dadkii meesha joogay oo dhan waxa ilaahay ka dhawaajiyey inay wada yidhaahdaan aamanaa birabbi alghulaam ayaan rumaynay yarkaa yar rabbiga uu xaggiisa noogu yeedhayay baan aamino rumaynay annagu waa qof keliya ayuu boqorku uu iska dil mujtamacii meesha joogo oo dhan ilaahay wuxuu u galladaystay inay noqdaan wada muslimiin wada muuminiina muraadkii uu ka yar lahaa ma gaadhay mise ma gaadhin wuu gaadhay isagii laakiin uu dhintay isagu jannuu galay janno laanna shahaada ilaahay siiyey qoomkiisiina ilaahay hidaayad buu siiyey waxa adduunyada loogu jeclaaye bini aadan u jeclaa buu ilaahay dartii u huray ilaahay maadaamuu diintiisa naftiisa u huray qoomkiisiina ilaahay hidaayadii ku galladayso u hanuuniyey boqorkii uu yaabay madaxuu qabsaday markaasuu yidhi or waxaan ka digtoonaa baa dhacay waxaan ka taxadirayay baa dhacay oo muxuu ka taxadirayey dadkaasi inay isaga ka go-aan oo ilaahay ay ku xidhmaan markaasi askartii baa ku tiri dhib male waan haynaa dadka qofba kama bixi karo dhulkaan jeexaynaa saliid baan ku karkarinaynaa kulul qof kasti waan dul joojinaynaa qofkii diinta islaamka ka noqdana waan ka tallaabinaynaa qofkii diinta islaamka ku adkaystana waan ku ridaynaa saliid karkaraysa ka waran oo qof bini aadan oo lagu tuurayo qof kasta waa la keenaa ka noqo diinta islaamka kama noqonayo waa lagu tuuraa qutila asxaabu lukduud annaari daati alwaquud id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billahi alcasiizi alxamiid suuraddaas weeyaan tafsiirkeyga suurat lburuuj xadiisku suuradduu sharxaya qof kastaa la keena ka noqo diintaad aamintay may kama noqonaya buu leey rabbigay aaminaadaan aaminay ka noqon maayo waa lagu tuuraa markaas waa saliid karkaraysa qofka lagu tuuro dub iyo lafu u kala baxaya islaan waxaa la keenay ilmahaygii nuujinaysa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaa lagu yidhi ka noqo diintan aad aamintay iyo rabbigan aad aamintay ka noqo kama noqonaya bay tidhi markaasaa hay ku dhac markay dabkiis dul taagtay ololkii ayay naxday joogsatay buu rasuulku yidhi
nafteeda uma cabsane baa la yidhi waxay u cabsatay ilmaheega naaska ay nuujinayso ilmihii yaraa naasku nuugayay miskiin waxa meesha ka dhacaya war uma haya isaga waa ilmo yar intuu ka qaaday afkii buu eegay hooyadii markaasuu hooyo xaq baad ku taagantahay ku dhac buu yidhi ilmuhu goormuu hadlaa goormuu hadalka bilaabaa 2 sano markii la dhaafo hadda kan uu nuugayaaba naaskii yurdic sadyi ummihi hal mar keliya intuu ka qaaday buu hooyo xaq baad ku taagantahay ku dhac buu yidhi mufasiriintu waxay yidhaahdeen yarkaa yar ee naftiisa u huray diinta daraaddeed 70,000 oo qoomkiisa ayaa sababtiisa diinta islaamka ku soo gashay qisadan waxaan u soo qaadanayaa waan ugu dheereeyay raalli ahaada muslimku inuu wax bedelaan la doonaya mise in la bedelo mujtamaca maanta islaamka meel kasta adduunyada ay joogaan ma waxbaan bedeloon caalamka ku soo kordhinay oo dhaqanka islaamkan adduunka ku fidino innaka dadka bedelay mise innaka leena bedelay araya la bedelay bal sheeg dhalinyaradeena magaalada Hargeysa ka soo qaad Hargeysa Jabuuti isku mid baan nahay dad cadcad oo gaala ay nooma yiman haddana dhalinyaradeeni daawashada ay shaashadan ay ka daawanayaan dhaqanka gaalada miyaan ku saamownay mise dhaqankeennii bay gaaladu intay daawadeen innaka bedelay bal iga jawaab mid baa yidhi baryahan sheekh waxaad wacdiga ku dartaan dhalinyaradii dhafoorada xiirteen kala hadla waxaa yidhi kuwa magaalada anu lamaba yaaba baan ku yidhi waayo geel jiro waxaan arkay dhafoorka xiiran maanta maxaa kala yaaba ka magaalada jooga markaa geel jiri baa dhafoorka xiiran bay marka walaalayaal wiilashayda la daatihiina waxaan ilaahay muslimku waa inuu wax bedelo weeyaan in la bedelo maaha waxbarashadana ku dadaala waan u baahanahay in wax la barto inuu qofka muslimku dhakhtar noqdo inuu injineer noqdo inuu professor noqdo inuu mutacallim noqdo waan u baahanahay laakiin waxaasoo dhan waxa asaas u ah waa inuu qofku ilaahaysa ka cabsado ilaahay ku xidhnaado haddaad ilaahay ka cabsoonaynin ood iimaan iyo allah ka cabsi lahayn oo ilaahay ku abuuray aanad garanaynin dibloomkan iyo digriigan iyo shahaadadan aad qaadanaysid waxba ku kordhini mayso ogo waa warqad waxa dadka kugu daraya waa akhlaaqdaada waxa dadka dhigaya waa akhlaaqdaada waxa qof wanaagsan ka dhigaya waa akhlaaqdaada akhlaaqdaasina waa akhlaaqdii diinteena islaamka ay noola timid weeyaan insha Allah dhahada soo diyaar ma nihin insha Allah Allah inagu anfaco